xulka Norway tii ay ku dhigeen dhigooda Brazil dadka waxay u arkaan wax aan caadi ahayn balse guuldara Brazil in ay ka aqbashaan Norway ma ahan wax cusub ee waa wax horay u dhici jiray lana filayo in ay dhacaan mar kale waxana taasi ay ka turjumaysaa xiisaha iyo xamaasadda ay leedahay kubadda cagta iyo sida ay u tahay muujad aan la saadaalin karin daqiiqad kasta إلا نوروي وحلك كاليا وليجي أن وحقول دراء كلا كل من برازيل شانكولان أو أيلا ديلين صدح كاميدا وحقول يستي حلك النوروي هلك بربراء أي قالين صدح ذاكالي مصيبة دا كوهاب ستينا حلك برازيل حالاي وحيبا باللابتي إسلا دقيقة دي أفر إيا طبانات أو ريغورا أي هيلين أو قسارياي برونو جيمارايز marka iyo wixii ka dambeeyayna waxa bilaabatay in Haaland xoog iyo xeeladba uu ku dhafo Gabriel Magalhaes oo noqday geesi garab waayay Gabriel Magalhaes oo dhulka yaala ayuuna kubad madax ahayd Haalandeere uu ku talay shabaqi uu wardiyaha ka ahaa goolhaye Alisson goolka oo kiciyay shucuurta kumanaankii reer Norway ee daawadaha ka ahaa kulankan markale Haaland ayaa dhaliyay kubad dhaaftay oo ina uu ka dhaxdusiyay tafaha Danilo ugu dambeyntiina wax uu ka qaban waayay goolhaye Alisson inkastoo gabagabada ciyaarta gool kulaad oo ay heshay Brazil gool u badalideeda uu ku guuleystay Neymar ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 2 gool iyo gool taageerayaasha reer Norway ayana isaga soo baxay garoonka ay ka dhacaysay ciyaarta iyagoo niyada kale ama Haaland hayso ama cilana ahaw waxana uu noqday laacib xulkiisa dhabarka ku sita isagoo gool dhaliyay dhamaan 14 kulan ee ugu dambeeyay uu u saftay qarankiisa Norway xulka England dhankooda ciyaar dhaaftay oo aad u adkayd waxay la dheeleen dhigooda Mexico waxana kulanka uu ku soo dhamaaday 3 gool iyo 2 laba kamida goolasha waxa lahaa laacibkii kooxda Real Madrid ee Jude Bellingham halka gool kale uu ka yimid Harry Kane oo maalmahan ku soo baxay laacib aanan kula naseeraynayn markan iyo wixii ka dambeeyana waxa indhaha lagu hayaa kulanka xiisaha badan ee dhaxmari doona xulqaranka Spain iyo Portugal Cristiano Ronaldo niyad wanaag badan ayuu muujiyay ka hor ciyaartan weyn waxana uu yiri ma xuma waxaan aaminsanahay aan aragno haddii aan ka adkaano Spain laga yaabe inaan ka dhaliyaba gool Ronaldo hankiisa ma xuma waadna ku mahadsan tahay haddii aad daawanayso warbixinadan ilaa iyo dhamaadkooda waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman